tan iyo saaka qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed oo ka kala yimid daafaha magaalada Muqdisho ayaa soo buuxdhaafiyay taalada daljirka Daahsoon ilaa iyo xarunta dimuqraadiyadda oo ah aqalkii hore ee baarlamaanka Soomaaliya halkaasi oo ay ku weynanayaan isla markaana ugu dabaaldegayaan maalmaha ciisiga leh ee 26 Juun iyo 1 Luulyo oo ah maalmihii Soomaaliya ay xornimada ka qaadatay gumaystayaashii reer Yurub qaar ka mid ah shacabka oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin inay u dabaaldegaan sanad guurada 16aad ee xorriyadda Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho daadeena ma yaruntii alxamdulillah saano kale laxdinkeeda madaxiisano karuntii ilaa hadeer caawa ma la yaabana waxa imdaadna macna wax ka ogaada aan fiiriyo macna aad iyo aad oo faraxsanahay macna waxaan arkayaa in shacabka Soomaaliyeed dawladnimo ay u baahan yihiin aad iyo aad u faraxsanahay waayo aniga ma damaashaad aan saarkii inta qayb gelgeliyay oo laxdii shantii kii laxdii todobadii waa qayb gelgeliyay marka ka waran dareenkii aad u sarey markii tan oo kale wali markii oo nabada markii siyaad bar waqti saan oo kale markii alxamdulillah wallahi ilaahay maadiisa wallahi marka horta aad iyo aad ma santiin maanta aad u faraxsanahay maadaama aan ku jirno maalmaha xorriyadda sidoo kalena waa dareemaysaa markii dambe wadanka ilbax iyo waxa la siiyay faa'iido iyo waxyaabo badan sababtoo waxa laga yaabaa xilli waxa la soo maray maanta kale aan la xasuusan laakiin maanta waxa dareemay cuniga ugu yar maanta 5 jirka waa u jeedaa inuu kula bisan yahay maxallaha dharka maxallaha oo calanka Soomaaliya waxa dareemaysaa dadka waxa horumariyay ama waxay la tahay aniga in dadka dareemeen maxallaha wadannimada iyo sidoo kale inay ilbax ama caalamka la socdaan sidoo kale waxa weyn kaalin weyn ka qaata dhigi kara social media dadka si wanaagsan ay ula socdaan ما شاء الله جيكم أنتوا لا ودي الحساب كرمان وهذا فرح سناي ما دام أكون جرب مع حريدة اللي إحنا كلا قبل كودي ما شاء الله أسبوع حريدة إلا أسبوع كده معنا إن شاء الله ما هنجوين إن شاء الله أبينكس ما شاء الله حاليا باين هلك كيني مهود كسي وضن ما دام هيجو جيلك واحد الصعوبة سكر يجين تذكر وضنك معناه حرمة دليل قارن واحد ثاني قارن وقت واحد ما ربيع marka anaga dadana heerna waxaan rabaa wadanka hore sii wadno insha Allah aan ku daan doono toddobaadka Soomaaliya ayaa ah mid bilan oo Soomaalida taariikh gaar ah ugu suntan tan iyo markii ay iska tuureen heeryadii gumaystayaashii reer Yurub ee qaaradda Afrika ku soo duulay kuwaasi oo ku naaloonaya xubnimo dhiig badan oo ku daatay isla markaana awooyaashu ay u soo dagaalameen Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho